si loo gaaro hiigsiga xukuumadda deegaanka Soomaalida ee ku aadan kamera dhalinta qorshayaasha horumarineed ee u degsan deegaanka ayaa maamulada qaybihiisa kala duwan waxa ay yeeshaan kulamo ay iskaga xog waramayaan halka uu marayo qorshayaasha u yaala deegaanka kuna qiimeynayaan dhaliilaha xafiis walba uu leeyahay si loo saxo haddaba maamulka degmada Mooyaale oo ka tirsan gobolka Liban ayaa waxa uu yeeshay kulan ay isku qiimeynayeen kagana waramayeen xafiis walba qorshayaasha u yaala sanadan 2007 halka uu marayo iyo waliba waxa uga dhiman kamera dhalinta qorshayaashaasi u degsan kulankani qiimeynta ay yeesheen maamulka degmada Mooyaale ayaa waxa qayb ka ahaa warbixin ay soo jeedinayeen xubnaha kabineetka degmada taasi oo ku saabsanayd xaaladda ay ku sugan yihiin bulshada degmada Mooyaale kadib xubnaha kabineetka oo hoos ugu dhaadhacay tuulooyinka iyo waliba tuulo hoosaadyada degmada Mooyaale gudoomiyaha maamulka degmada Mooyaale mudane Cabdisayid Barkhadle oo ka hadlay furitaankii kulankani qiimeynta ah ayaa waxa uu sheegay in kulamadan noocan oo kala ah ee ay yeeshaan maamulada uu horseedayo xog ogaanshaha baahida bulshada iyo waliba kamera dhalinta hiigsiga xukuumadda shirkani waa shirkii caadada inoo ahaa bil walba in la qabto ee ahaa markii laga soo noqdo sektarada qabalayaasha ee kabineetku uu loo kala diray oo ahaa 15 casho in laga soo qabto nidaamka maamulka suuban horumarka nabadgelyada iyo gaar ahaan xaaladaha dakhliga in maartay laga soo qabto tiiba la qiimeynaya yani qiimeynayna xaaladda xoog la saaray kuwa ay noqonayaan mid kale waxyaabaha ayadana sida gaarka la rabo in maartay bulshada loo tuso waxay tahay maadaama aynan ummad hormari karin haddii aynan fahan ka haysanin waxyaabaha la qabanayo in ummadda fahan laga siiyo kadibna ay ku darsadaan doorkooda iyo xoogooda ka qaybalkooda iyagu bulshadu kulamadani qiimeynta ah ee ay yeelanayaan maamulada deegaanka ayaa waxa uu horseedayaa in wax laga qabto baahida bulshada deegaanka isla mar ahaantaana lagu guuleysto hiigsiga xukuumadda ee ku aadan la dagaalanka jahliga iyo saboolnimada maxamed xasan xaashi telefishinka Soomaalida Itoobiya magaalada Mooyaale